xiisadan colaadeed ayaa ka taagan deegaan lagu magacaabo ina diidayo oo ka tirsan degmada Afbarwaaqo ee gobolka Mudug waxaana xiisadan colaadeed u dhaxeeya laba beelood oo walaalaha oo wada dega deegaankaasi. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalle Cawid ayaa si kulul uga hadlay dagaal beeleedyadaasi ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka Mudug waxaana baaq ugu diray madaxda Galmudug, Puntland iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka inay kala dhex galaan labadaas beelood ee ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobolka Mudug. waxaan soo jeedinaynaa in maadaama arrintii iyo baaqii dhinac walba laga sameeyay aysan xallin mushkiladii taagnayd, abaabulkii iyo gurmadyadiina ay deegaanka aada ugu sii socdaan, aanna cabsi weyn ka qabno inay saameyn ballaaran ku yeelato deegaamo shacab oo aada iyo aada yacni saameyn shacabka ku yeelato. waxaan soo jeedinaynaa in guddiga nabadeynta ee gaalkacyo ama gobolka Mudug iyo ciidanka xasilinta ee heer federaal ee ka howlgala gobolka Mudug inay ku gurmadaan deegaankaas, sidoo kalena xildhibaanada iyo senatarada labada aqal oo la kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha in deegaankaas lagu baxo oo si degdeg ah loo joojiyo ololahaas colaadeed ee aadka u baaxadda weyn, iyadoo aan runtii dareen ka qabno in intaas oo baaqiya ah iyo xiriir ah laga dhaga adeegay, haddana inaan laga quusan oo culimmada diinka Soomaaliyeed iyo dhaqanka iyo xildhibaanada labada aqal iyo xukuumadduba inay doorkooda ka qaataan, maamulka Puntland iyo Galmudugna ayaguna ay doorkooda ka qaataan ayaan soo jeedinaynaa. colaadaasna si degdega loo joojiyo, abaabulkaas iyo ciidanka kusii gurmaya deegaankaasna in dib looga soo celiyo, maadaama shacab badan ay ku barakacayaan oo runtii dhibaatooyin badan ay ka jirto. maalimahan soo socotana waxaan qaban doonaa kulamo ama xildhibaanada iyo senatarada iyo mas-uuliyiinta gobolkaas ha ahaato ama waxa weeye sidaan u soo hordhigi lahayn labada aqalba in arrintaas khatarta ah oo waxaan ka hadlaynaa tiro yacni konton technica ka badan in deegaamo shacab degan yahay la dulgeeyo oo lagu hareereeyo deegaamada qaarkood oo shacabkii ay ka qaxi la'yihiin maadaama laga goostay jidadkii. arrintaasi arrin dhacday ma aha. Soomaalidu waxa weeye dhaqan cusub oo magaalooyinka in la gubo ayaa ka bilaabatay. waxaan ka digaynaa oo aan uga digaynaa dhammaan qaybaha colaadaasi ay khusayso in lagu sii socdo jidkaas. waxaa laga waantoobaan leenahay, cawaaqib xumo ayaa ka imaanaysaan leenahay. dadka mas-uulka ka ah arrintaasna inaan looga hari doonin baan u sheegaynaa runtii, oo sharciga lala tiigsan doono. maalin walba in boqolaal qof oo Soomaali ah dhiigooda bilaash loo daadiyo, dadkii mas-uulka ka ahaana ay laamiyada socdaan, wax suurtagelaya ma aha. Cabdullaahi Maxamed Sheekdoon, raadiyaha tusmaya telefishinka CNN magaalada Muqdisho.